السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ميل والبودونية دعالة أد جوجتان كسو دوادة channel كينا ساب تي في هسا هاتي انت aan qodobada aan ka hadli doono aan u gada gelin bal hal mar ila daawada videogan yar waa gartay qodobada aan ku qaada dhigi doono videogani waxaa ka mid ah Arsenal suuqeeda ciyaaryahanada ay doonayso inay keensato sidoo kale ciyaaryahanada injury-ga ooga soo noqday iyo sidoo kaleba April 26deeda game-ka aan la leenahay Man City iyo sidoo kaleba Arsenal soo bandhigida ay soo bandhigtay funaanadeeda third kit-ka loo yaqaano ama funaanada saddexaad ee Arsenal ay ku dheelayaan ee qaabka ay u eg tahay tan afraadna waxaan ku qaada dhigi doonaa title race-ka ama yaa ku guuleysan doono liiga sanadkan asaate marka hore channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar haddii aad nala socotayna aad iyo aad u mahadsan tahay fadlan like-ta iyo share-ta iyo comment-ga naga iloobin haddaba haddii aan ku bilaabo Arsenal iyo suuqeeda sida arkayseenba videoga aan idin tusay waxaad arkayseen Declan Rice oo maaragtay saxiix ku leh funaanada Arsenal ciyaaryahanka Arsenal ee number 10 ka ciyaaro waa ciyaaryahanka sanadkan laga yaaban yahay waa Odegaard halka maxay idin kaga muuqday akhyaaray sidoo kale waxaad ogaataan Declan Rice inuu yahay ciyaaryahanka loogu badinayo in Arsenal uu saxiixi doono inkasta oo ay maaragtay ay raadinayaan klabyo aad u tiro badan Manchester United ayaa ka mid ah oo waliba si xoog loo raadinayso sidoo kale Liverpool oo isku jirta ay isna ciyaaryahanka raadinayso Chelsea ayaa isna raadinayso oo maaragtay ku tala jirto suuqan soo socda inay iibiso 8 ciyaaryahan hase ahaatee waxay u badan tahay ciyaaryahankani in maaragtay uu dhexin doono Arsenal iyo Manchester United sida ay dadka badi ay tusaaleynayaan ama maaragtay relegation ay aadeen markaas waxaa laga yaabaa inuu Janis uu noqdo ciyaaryahanka lacag marka lagu helo 75 ilaa 60 milyan inay ku hesho marka asaga ayaa maaragtay ku qasbi doono in ciyaaryahanku iskaga taga teamkaas ahaatee haddii aysan noqonin ciyaaryahanka 80 milyan 90 milyan kama yaraan doono hase ahaatee Arsenal ciyaaryahanka aad ay u raadinaysaa number 1 list ciyaaryahanada khadka dhexe ee ay soo qaban doonto ayuu ku jira ama isku dayi doonto in ay raadiso sidoo kale ciyaaryahankii aan maaragtay Arsenal ay raadinaysay suuqii u dambeeyay ee ciyaaryahanka Brighton oo ciyaaray waa Moises Caicedo ciyaaryahankaas oo ogtihiinba inuu maaragtay message uu ku soo taagsaday una doonayo club ka weyn inuu aado waliba Arsenal maaragtay uu aqbalay heshiiskii ay u soo bandhigatay ayaa isna Arsenal sanadkan ay raadinaysaa oo isna ay leedahay ciyaaryahanka aad ku noqotaan inkastoo sida ogtihiinba ciyaaryahanka uu heshiis uu la galay Brighton kaasoo soconayo 2000 ilaa 2027 taasoo waliba adkeynaysa ciyaaryahanka maaragtay suuqa loo soo bandhigo ama maaragtay uu ciyaaryahanka meel kale aadahaas ahaatee sida uu maaragtay wargeyskan weyn ee uu leeyahay ninkan ciyaaraha falanqeeyo waa Fabrizio Romano wuxuu sheegayaa in kasta oo ciyaaryahanka oo maaragtay heshiis dheer uu la galay Brighton hase ahaatee maaragtay uu raadin doono oo isku dayi doono inuu ka tago clubkan wuxuu yiri waana arin suurtagal noqon karta in uu ka tago ciyaaryahanka iyaguna markaas Brighton ay maaragtay lacag tir badan ay sheegtaan hase ahaatee ciyaaryahankaas asagana wuxuu ku jira listiga Arsenal ay raadinayso runtii waana ciyaaryahan aad u wanaagsan khadka dhexe aad ugu fiican maaragtay oo bedel u noqon kara Granit Xhaka game-kii u dambeeyay sidaad ka arkayseenba Tottenham ay ciyaareen runtii maaragtay 52 baas oo successful ah ayuu maaragtay khadka dhexe oo ka diray 2 baas oo waxa ku jirtay key ah ama ciyaaryahan ama baasaska loo yaqaano kuwa muhiimka ah ee maaragtay boxka lagu dhex siidaayo runtii ciyaaryahanka waa ciyaaryahan aad oo maaragtay ugu soo baxayo Arsenal maaragtay style-keeda asaatay ciyaaryahanka ka garab dheela sidoo kale McAllister ayaa isna u badan tahay in uu ka tago Brighton
wuxuuna raadinayaa maaragtay inkasta uu yahay ciyaaryahan maaragtay hadda soo jiitay kalaabyo waaweyn oo aad u tiro badan uuna yahay ciyaaryahan ku guuleystay World Cup-ka wuxuu doonayaa in kalaab weyn maaragtay uu ku dhaqaaqo inkasta oo hadda wadahadal uu la furay Liverpool sidoo kalena Manchester United ay raadinayso ciyaaryahanka Arsenal suurtagal uma ahan in ay soo qaadato waayo waxa ay hadda xooga ay saaraysaa waa Moises Caicedo ciyaaryahanka xaalkiisa waa sidaa oo waa arki doonaa bal asagana Arsenal in ay ku wareegto sidoo kale ciyaaryahanada Arsenal maaragtay in ay saxiixda laga yaabo sanadkan ayaa waxaa kamid ah ciyaaryahan maaragtay isan suurtagal ahayn sida aniga ila tahay hase ahaatee wararka ay soo gudbinayaan in Arsenal ay ciyaaryahanka daba taagan tahay waa ciyaaryahanka German club u dheelo Dortmund Bundesliga ciyaaryahanka ka ciyaara weeyaan waa Jude Bellingham ciyaaryahankaas oo ogtihiin Liverpool daraad inay iskaga baxday maadaama maaragtay lacagta lagu sheeganayaba ay maaragtay lacag aad u tiro badan tahay waxaana ay soo gaartay xan ah in maaragtay Jordan Henderson iyo Mohamed Salah iyo Firmino ay maaragtay Liverpool coachkeed ay ku dhaheen maxaad maaragtay ciyaaryahan oo da'yar oo waliba aan la hubin wuxuu sameyn doono 100,000 aad uga bixinaysaan idinka oo awoodo 3 ciyaaryahan inaad ku keentaan taasoo walibana la sheegay runtii in maaragtay hadalkooda uu qanciyay maaragtay kalaabka iyo ragga iskalaba sida darteedna ay daraad ay maaragtay ay u sheegeen in ay ka baxeen ciyaaryahanka heshiiskiisa iyo raadintiisaba hase ahaatee waa ciyaaryahanka maaragtay waa ciyaaryahan laga yaabo runtii in maaragtay haddii ay Manchester United suuqa ay ku fashilanmato oo ciyaaryahan kale ay weydo in ay lacagta ay ku soo qaadato maadaama laftirkooda dib u dhis ay ku jiraan hase ahaatee ciyaaryahan maaragtay maahan maaragtay si fudud lagu damci karo waa ciyaaryahan price taggiisa uu yahay lacagta lagu xiray 130 milyan hase ahaatee ciyaaryahanka wadada kaliya Arsenal ay ugu suurtageli karto ciyaaryahanka inay soo qabato ayaa waxay tahay in ciyaaryahankan interestiga ama raadinta ay raadinayaan kalabyada idil ay maaragtay intay faraha ka wada qaadaan oo maaragtay ciyaaryahanka qiimaha loo istaagay 60 milyan ama 70 milyan maaragtay uu asna uu ku qasbo Tottenham taasoo aan u maleynaynin inay dhici doonto hase ahaatee ciyaaryahankaas ayaa asna la soo maaragtay wararka ay sheegayaan in Arsenal ay maaragtay raadinayso sidoo kale ciyaaryahankan oo weligiiba Arsenal suuq walbo maaragtay lagu soo hadal qaado leeyahay Arsenal ciyaaryahankan aad ay u baxaya ayaa sanadkan free ku soo baxayo ciyaaryahankaasi waa Wilfried Zaha waa ciyaaryahan Premier League aad loo yaqaano kalabyada waaweyn ay qadariyaan ciyaaryahan technical oo maaragtay runtii maaragtay aad u anfacaya Arsenal dadka qaar ayaa wax isdhahayaan Arsenal maxay ku falayaan ciyaaryahan 30 sano jir ah 31 sano jir ah xilligan hase ahaatee waxaad ogaataa Arsenal in maaragtay Premier League kaliya sanadkan soo socda aysan u tartami doonin in maaragtay ciyaaro fara badan ay soo wajahayaan oo waliba ay ka mid tahay ciyaaraha kuwooda ugu adag taasoo ah Champions League waxaana teamka markuu saan oo kale uu yaryahay loo baahan yahay waa rag maaragtay experience leh runtii Wilfried Zaha nin ciyaaryahan ah oo laga shakinaya ma ahan waana ciyaaryahan runtii aan isleeyahay Arsenal oo u baahan tahay maadaama Champions League ay galayso maaragtay teamkana rag experience oo maaragtay xoog loo hore u qaado loo baahan yahay wuxuu badal ugu noqon karaa ciyaaryahankaas sida ogtihiinba garab ayuu dheelaa mararka qaarna ciyaaryahan markii kalaabyo waaweyn ay ka hor imaanayeen Crystal Palace waxaa la leeyahay number 9 sidoo kale Arsenal sida ogtihiinba hadda waxa uu joogo false number 9 kaasoo ah Gabriel Jesus ma ahan number 9 buuxo sidoo kale waxa uu joogo Martin Trossard oo asna ciyaaryahan afarta gees ba ka ciyaari karo dhaxda labada gees iyo horeyba ka ciyaaryahan ka ciyaari karo hase ahaatee weli ciyaaryahan oo ma joogo Arsenal maartay striker-gaasoo dhammaystiranba sidaad ogtihiin ba labadooduba ciyaaryahanada waa laba ciyaaryahan oo aad u jecel inay soo degaan sidii Haaland oo kale ma ahan rag mar walba boxka taagan oo maartay la isku haleyn karo marka sida darteed ayaan u leeyahay Zaha maadaama free uu yahay lacag badan oo san ka qaadanaynin in ciyaaryahanka maartay Arsenal ay soo qaadato 3 sano oo ku shaqeyn kara 3 sano oo Champions League aad consecutive u taagneed ciyaaryahanada waaweyn ayaad u baahan tahay waxa ka dhacay meesha aragteen sidoo kale ciyaaryahanka bariyahan asana kalabyada waaweyn soo jiidanaya ayaa ciyaaryahankan asna Crystal Palace u ciyaaro kaasoo ah Michael
Olais ciyaaryahankan ay dhaan waa 21 sano jir. French ayuu u dhashay. 2 gool ayuu sanadkan maartay seasonkan uu leeyahay iyo 8 caawimood ayuu leeyahay. Runtii gamekii u dambeeyayna wuxuu tusayay kalabyada maartay inuu yahay ciyaaryahan aad u da'yar, sidoo kale aad u qiimo badan oo maartay haddii chance la siiyo maartay wax badan qaban karo. Ciyaaryahankana sidoo kale sida ogtiin wuxuu bedel u noqon karaa oo isku day yihiin maartay Saka ayuu bedel u noqon karaa oo maartay isna aad ayuu u caawin karaa Arsenal. hase ahaatee wararka waxay soo gudbinayaan in Arsenal ciyaaryahanka ay raadinayso maartay laga yaabana in ay saxiixdaba. Intaasi waxay ahaayeen Arsenal iyo transfergeeda. Sidoo kale Arsenal ayaa maartay waxa uu soo noqday ciyaaryahankeedii striker uu ahaa ee maartay intuu Jesus ka maqnaaba uu ciyaarayay waa ciyaaryahanka Eddie Nketiah. runtii xilli fiican ayuu soo noqday, xilli maartay loo baahan yahay number 9, xilli ay maartay seasonka uu sii gabagaboobayo ciyaarihiina maartay si degdeg ah ay ku imaanayaan. sidoo kale William Saliba ogtiin isaguna in ciyaarihii u dambeeyay afarta haaba uu naga maqnaa, inkasta oo Rob Holding oo maartay shaqo fiican uu qabanayay. hase ahaatee ciyaaraha hadda nagu soo socdo waxaa loo baahan yahay runtii Saliba aad ayaa loogu baahan yahay, wuxuuna siinayaa Arsenal dadaal zaid ah, gadaal adkeyn zaid ah, maartay hubaal in gameka qaar ciyaaryahanka maartay Arsenal uu badin karaba. ciyaaryahankaasna waxaa la rajeynayaa in uu maartay 26 bishan April horteed inuu soo noqdo si uu uga hor imaado gameka aan la leenahay Man City. gamekaas oo ah Arsenal gamekeeda ugu weynaa ee ay dheelayso seasonkan sidoo u bilaabmay. waxaan rajeynaynaa maartay inuu warka uu run yahay ciyaaryahankan xilliga uu soo noqon doono. sidoo kale akhyaaray ka warama Arsenal iyo maradeedan ay ku ciyaari doonto seasonkan soo socdo. waxa weeyaan waa marada saddexaad ama third kit waxa loo yaqaano ee Arsenal ku ciyaari doonto waa cagaar. runtii asagoo Jesus uu qabana sida ayay u taalaa maartay marada sida ay maartay u qurxan tahay. maxaad ka leedihiin ka warama maradaas? sidoo kale waxaad ogaataan akhyaaray waa arinta ugu dambeysay aan ka hadlaynay title-kan Arsenal ma qaadi kartaa. sidaad ogtihiinba Arsenal waxay ciyaartay 31 ciyaarood waxayna haysataa 74 dhibcood, taasoo ku sheegaysa in Arsenal ay u dhiman tahay 7 ciyaar. 7 ciyaar oo haddii ay Arsenal ay soo badiso waliba taasoo ay ku jirto gameka Man City, Arsenal waxay helaysaa 21 dhibcood lagu daray 74 dhibcood, taasoo total ahaan isku imaanayso 95 dhibcood, halka Man City ay 70 dhibcood ay haysato iyadoo dhashay 30 ciyaarood halka ay u dhiman tahay 8 ciyaarood, taasoo 8 haddii loogu dhufto 3 dhibcood mid walba ay ka soo qaataan game walba ay u imaanayso 24 dhibcood lagu daray 70, waxayna total ahaan iyaguna ay u imaanaysaa 94 dhibcood, halka ayna Arsenal ay ku qaadi kartaa liiga. hase ahaatee haddii ay Arsenal ay maartay Man City draw ay la galaan inta kalena ay soo badiyaan, Man City ayaa si fudud ku qaadayso. haddii ay draw iyo karayn iyo sheeko kale ay isku gashana meel cidla ah ayaa looga tegaya Arsenal. sida ayuu maartay ay aad ugu adag tahay runtii in maartay labada dhinac ayaa midkood qaadi kara loo oran karo, waxayna maartay ay ku xiran tahay runtii sida loo badinayo Arsenal gameka ay la leedahay Man City. hase ahaatee waan arki doonaa sida ay ku dhammaato. Arsenal inay ku adkaysato ayaa laga yaabaa oo maartay kuma cusbo seasonkan inay maartay 8 game oo isku xiga ay badiso, sidaan soo aragnay way sameyn kartaa. hase ahaatee waa isla joognaa waxay sameysana waa arki doonaa. marka akhyaaray haddii aad ka heshay videogan fadlan like saar, subscribe saar, sidoo kalena ra'yigaaga ka dhiibo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.